waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan xilkayga u gudan doono si daacad ah oo dadkeeda ku jirto dowrana dastuurka dowlad goboleedka Hirshabelle kan qaranka iyo shuruucda kale dalka amaantintii Ilaahay inaan garab galo xilka culusaad qaato golaha labada aqale dowladda federaalka Soomaaliya golaha wasiirada odayaasha dhaqanka duubabka imaamku ugu horeeyo ugaasyada iyo warada iyo nabadoonnada saxaafadda nimanka haddii alla idmo horena aan ula shaqayn jiray anoon hadda teetalka maanta haddii idmateen aan hayn haddana aan idiin ballanqaadaa inaan la shaqayn doono oo ciidamada qalabka sida ah saraakiisha iyo ciidamada qalabka sida kana shaqeeyey amniga xafladdan quruxda badan iyo dowladdan quruxda badan ee lagu dhisaa dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee halkan iskugu timid xafladdan lagu dhisayo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabelle waa uga mahad celinaa meeshaan waa salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaan mar labaad inuu mahad celiya rabaa duubabka dhaqanka ee Hirshabelle kuwoodii maalmihii soo socday markay arrintan wax ka agaasimeen tegey iyo kuwooda weli xaqiijinaya ganaanudka ugu dambeeya xaqiijinaya oo imaamku hogaaminayo mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadaan u mahad celinayaa noo jiro noo jooga maamul goboleedyada la cooriyo Soomaalida waa taqaaniine waxaa midida daabka uga haya duubabka siyaasiyiintu markay sii jiidaan waxaa isku celiya duubabka anigu hadda aan maamul hebel maaha laakiin hadda annagana runtii 4 sano la soo dhaafay dee addu kuma shaqaynayna waxbaa dhisteen wixii qalloocdana haddii laydigu yeero waxbaad ka dheeladeen anaga haddaan kadib aniga madaxweynahaygu waa idila tashan doonaa wixii laga qalloocday wixii aan ka yaabno waa idigu yeeri doonaa kaalintiinina waa buuxideen duubabka kale isteedada kale kuwa waa awal la sheegi jiray kuwa Hirshabellena in dadka Soomaaliyeed ku sheekaysan doonaan u malayn marka waa mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo sida saaxiibkay madaxweynahaygaba u sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee si dhow ula socotay arrimahan faragelinteedana ka ilaashatay waa mahadsan yihiin ayagana waa u mahad celinaynaa kaalintaynana waa buuxin doonaa haddii alla idmo ayagana dee waa hoggaankii dalke waxaan leeyahay waxa ugu wanaagsan allaha ku aadiyo intaas kadib khudbad dheerina dadku waa daaleen mahad celinaynan ku ekeeyaan rabaa hadalka laftigaygu hadal badan hadda maanta ima karo waxaan kaliyoon rabaa baarlamaanka Hirshabelle inaan mar labaad iyo mar saddexaad asigana u mahad celiyo ballankan shalay ballanoo igula heesahay waa fulideen aad u mahadsantihiin codsigii shalay waa ka jawaabdeen wixii hore oo tabanaana waa cafi aad u mahadsantihiin waxaan hilmaan hadal kuma jiro aan rabaa inaan ayagana u mahad celiyo guddigii doorashooyinka ee ka soo bilowday guddoonka baarlamaanka iyo guddoonka baarlamaanka oo ku soo biiro ayadana arrintan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka daadihinayay ayagana mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraadaan u mahad celinaa aadaad u mahadsantihiin jiroo jooga dee waxaa hadda adigu markaad soo baxdeen annaga wax lala dhihi doono manugi laakiin adinka aadaa laydigu hambaliyinaa facebookyada haddaad fiirsato
waxaan leeyahay dee dhallinyaro aqoon-yahanaa dhallinyaro saasa dhallinyaro wanaagsan dee annagana waa markhaati aan ka nahay inaad kaalintii buuxdeen marka aadaad u mahadsantihiin waxaan rabaa in halkaas ku soo koobo dadku waa daaleen imaamiyada iyo odayaashii waa sida waqtiga yimida waa ogtihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu